ninkii kilida markaan kuu soo helin waa qaadan weysay nuu kala kaxaynayo meesha waxba kuma hayna oo iska bax ninka wuxuu yiri marka waay ilaa beri la isiiya uu yimid soo meesha joogo oo wuxuu soo xasuustay asxaab ahaayeen oo soo xasuustay mid ka mid uu yiri haligu yeero midkii war maxaa kugu dhacay arrintan ay haysato maxaa kaliyaha ibarka ahay marka wuxuu yiri kaliyaha ibarka tahay maxaartii lagu sameeyo wallahi wuxuu yiri hadii la caawi karo oo familka hadaan tii ilaahay itimada familkana ay caawisid hadii tii ilaahay itimaado ama wax le adiga kulliga meesha inaan ka caawiyo maleynaa dhaqaatiirta banaanka isaarooyeen marka taas baa ka codsanaa marka wuxuu yiri khayr noqonaysa insha Allah waxaan kula sameyn karo kula sameeyna uu soo baxay dhakhtarkii uu yimid wuxuu yiri ninka maxaa haaya kilidaas waaye marka kilida qof kasta ma laga bixin karaa mise waxa laga bixinaa dadka qaarkooda marka waxay dhahaan asiga kaas waaye qofka dhiigaas laga qaada haduu noqdo waa laga bixinaa wuxuu yiri ani dhiigiga qaat ani fiiri caafimaad qaba waxa la waa la fiiri waa caafimaad qabta labada kilood waa caafimaad qabaan wuxuu yiri hal kili u bixi laakiin shart waxa waa inaadan u sheegin u dhax ya Allah shart waxa okay dhakhtarku wuxuu yiri camaliyada dhan ana bixinayo u dhax oo lacag camaliyada ana wada bixinayo ninkiisa camaliyadiisa bixi waa la qalay kilida laga soo bixi ninkii kala loo geliyay halkii kiliya loo geliyay lacagti waa loo geliyay daawooyina la siiyay marka ninkiina uu iska baxay kii waxa la kiliya kuliya kaash wallahi qof ay yimida liida ku siiyay ninkii uu iska baxay oo uu xanuunsaday uu soo baxay ninkii uu soo baxay kan isbitaalku ka soo baxay saaxiibkiisii uu soo raadiyay نيو صاحب خير الله كسي ما شاء ما شاءت وحو تمد ما شاء بركة هذا ما كان حقوق أبا المريم مدة حنون سنة مدة حنون سنة مركا تمد إما قف أولياء مركا تمد وحو كلية هلي وإله ويعافي عرورتي إذا ما أنت ما غنى وإله لسه إله سبحانه وتعالى حقوق أبا المريم وحقوق أبا الجور مكرنا يا الله إنكي مركا أو كل ذكر الله علمه سمت كمذا الحق أو ينادى الحمد لله أما أد بزنس وهالحقوق إله وكلاكعيه إنه كلا كعي نينكي كليدسي أسيقو أوين إنه كليسي أيا وحو مغلي نينكي هبل حنون صنو مقلي قالوا وحور هبل نينكي إسو زيارتي واي أنا وعي ماذي واي وأتجي مركز وير هبل مركز وير والله وافي عنا الحمد لله حنون إسكير واي أو حنون صنحي مركز حنون وفيري مركز وحور كل اللي أميتها يورح ما يوحير الحمد لله كلمة لك وح حنون كلاواي هذه مركز مركو فيري وحاول ظروفها قبضتي قولي ديما بدنا لولها قولي أولها يا لقى كذا قولي ودقنا يا ألير ولا كذا قولي أبيس كذا حلي وكاس ألير وكذا ولا كذا لنديت يا كوبضتي مركز أرنتي وصام قلي وصاب بحي نيك محا هاي والله شيء مركز قولي أواس نيكا سا كذا وحير قولي وايه وحير قولي أريكا كذا ناي وتجي wuxuu guriga dooyay ninka oo nin guriga rabeen oo wuxuu guriga ka gatay u dhahay meeqa way intaas way ho yaa kala diin kula ninkana diin kula intii diinta kula hadu kas Allah kadib yirada uu sheegay wuxuu yiri ninka inaa u tagtaan guriga waa lagu soo celiyay dhax ana u sheegay subhanallah fiir walaaltinimada ya ana u sheegay Allah inta kaliya ma ahane hadiyan uu diray meel oo adi business yarna oo business uu siiyay wali warniyo waa qofa yimid guriga ku qaaday la dhaxay oo kan alaabahan ku sameeyay uu farxay uu yimid markuu wuxuu ilaahay ma hadcin inuu meelo ma hadciliyo ayuu yimid dadka la cazumi waxa kamid ah marka dhakhtarkiya kamid ah waxa kale oo kamid ah subhanallah ninkii guriga dalaalkii ahaa kamid ah oo guriga dalaalka sameynaya kamid ah meesha dhim sidoo loo wada sheekaysanay waxay noqotay marka almuhim sheekada waa su'aal oo hebelo dhakhtarka wuxuu niyo wuxuu ninkii oo kilidi si hada ii sheeg lahayd marka wuxuu yiri niyo nin kilidi ku sii ninkaas meesha fadhiyo laakiin hay sheegin oo igu dhax ma hebel munta ana ka soo wareegtay ما قصنا كسوريكتي وليس أبيس كم سوى بحنين سماش لو جوجي أسيقو يابن
ayuu wuxuu maqlay keliya ninkii kalena dalaalkiya meesha jooga hay guriga ma lagu soo celiye buu ku yiri ilaahay subxaana watacaala xikmadiisa kamid inay maalintaas lagu wada ogaado meesha guriga ma lagu soo celiye ha alxamdulilah wallahi wuxuu yiri ninka saaxiibka oo ku jecel yahay guriga asiga ma gaday igu lacag badan oo aagatay ninka kala xataa yaa gatay hebel aagatay waa ninku kulida siiyay waaye marka subxaanallah haddii aanan ka maqlayn qof oo qofkii ku dhacday qofka oo ugu dhow haddaan ka maqli lahayn waxaan dhihi lahaa qiso oo hollywood ama film hindi waa dhihi lahaa subxaanallah si isugu adaadeen ninkii rabo inuu dhaha ninkii dhaha kii kilida oo si ayaa wuxuu yiri hebelo ma aqaan waxaan kugu abaalgudo maxaa wuxuu yiri ma aqaan nool hadii bacd allah daadiga maanta ma noolaa lahayn aniga ma aqaan maxaan kugu abaalgudo maxaa waa kilidaadu yaa kuu sheegay waa lii sheego ogaad adin wuxuu ma aqaan saa kugu abaalgudo guriga yaa kuu sheegay adiga yaa kuu sheegay marka waxay noqotay emotional moment ay noqotay meeshii waxa joogay waxay noqotay marka walaaltinimada waa kan marka misaal ila laga bixiyo liiro kale walaaltinimo qofkii raba inuu ogaado hebel afiiriyo walaaltinimada taas waaye walaaltinimada la raba taas waaye walaaltinimada diinteena amraysa taas waaye walaaltinimada oo marka maslaxada ma ahan walaaltinimada markii oo baahantaan ka dhuumanay ma ahan walaaltinimada markii culays uu ku soo fuulo aan ka dhuumanay ma ahan walaaltinimada markii oo lagu qabsado ka dhuumanay maaha ninka walaalka runta ee waxa waaye ninka wax ku qabanayo adigoo ogeen waa ninka ku difaacayo culayska ka qaadayo intuu awoodo bal waxyaabaha ugu qiimaha badan qaar kamid oo ku siinayo taas walaaltinimada la dhaxay walaaltinimada